gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka iyo wadani ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ka soo yeedhay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka iyo wadani kaasi oo uu ku dirayay siyaasi Cabdilaahi Dahab oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka iyo wadani gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga wadani ayaa waxa uu sheegay in dib u sixi doonaan hadalka ka soo yeedhay xogayaha arrimaha gudaha kaasi oo uu ku sheegay in siyaasi Cabdilaahi Dahab oo hoggaanka sare ka tirsan oo ka hadlay safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku yimid dalka uu yahay mid isaga u gaara arintaas waa arin khalada Cabdilaahi wuxuu ka mid yahay hoggaanka sare ee xisbiga waana aasaasyaashii marka waxaaba khaladaba in xisbiyahana oo xisbiga ka tirsan oo madaxa oo hadleen laga daba hadlo taasaba khaladaba horta xoogay khalad buu galay inuu ka daba hadlo ma ahayn waxa weeye Cabdilaahi hoggaanka sare ku jira in Cabdilaahi waxna ma oran idee wuxuu safarka madaxweynuhu waa safar de Soomaaliland wuxuu soo jiiday guul keenay buuri mid baa idin sheegaya qaranimada Soomaaliland xisbiga wadani way ka go'an tahay qaranimada Soomaaliland gorgorta ma gali karto wixii wala Soomaaliland soo koriya qaranka soo kordhayaaba waa guul weeye waan taageersanay marka waxa la xogayaha de inaad masuul saro xisbiga ka daba hadasho khalad bay arintaas waa arin aan sixi doonno insha Allah marka arintaas arin khalad ay ahayd Cabdilaahi uu ku mahadsan yahay arinta uu ku hadlay waana ka xarsiinana dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka iyo wadani ayaa waxa uu ka hadlay qaabka ay diiwaangelintu uga socoto gobolada Maroodijeex iyo Saaxil waxaana uu bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codaynta arintan diiwaangelintu waa maanta maalintii koowaad ee la ku dhiyay si fiican bay socotaa in gobolka meelaha ka socoto in Soomaaliland Maroodijeex horeyso dadka Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqayaa waxay u eegtahay ama ay tahay dadkeena fahmay diiwaangelinta oo si fiican isu diiwaangelinayaan taasina waa guul soo hoyatay Soomaaliland waxaan leeyahay dadkaan qaadano taga labada cisheen oo haray qaata guul weeyaan guul Soomaaliland soo hoyatay weeyaan diiwaangelintu waxay kor u qaadaysaa dimuqraadiyadda geed socodka dimuqraadiyadda kor u qaadaysaa marka guul baan leeyahay dadka shacabka reer Soomaaliland guul baan leeyahay komishanka qaranka ku tahniideynaa arinta fiican ay sameeyeen Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan wararka bulsho Hargeysa